kooxdii United ahayd inay naga jiifto bilowga hore inay ka jaban tahay waaba fiicneedba war meesin soo dhawaada United afar ciyaar oo isku xigto iyo guul gaartay shantii ciyaar oo u dambeysay ma laga badin Tottenham Wolves West Ham Aston Villa Luton hadda lagu farxash nimankan bilowga hore inay dansanaadaan waaba fiicneedba haddii kale saddexdeena cariiriya ku jiri lahayn United hadda cariiri waxay ku haysaa kaalinta afaraad iyo kaalinta ishaag oo lixaad shanaad ayada lixaad shanaad iyo afaraad dhag waay waa bishaag Tottenham oo 3 dhibcood ka horeyso iyo Aston Villa 5 dhibcood ka horeyso afar leedahay kaalin afaraadna waa 49 haddii meesha imaatana hammi kale waa gali karaa laakiin hammigaas abaar u jira ani mas dhahay koray u soo baxay waayo City kooxaha ku soo foole ciyaar adag ku soo foole marka kulamadaas markay dhisho City la dhisho ogaa karnaa inkastoo Arsenal ayada gadaal kulan ku dambeey kulan ka soo horeey u yahay laakiin waxa ku ogaanaynaa kulamada oo isha City wixii kuwaas ku ogaa doonaa laakiin hadda waxa dhigi doontaa United galabta rijaalo iyo caawadan iyo xilliga waqti uba la geliyay waa la cariyay dheerabtaa sheekadaas ka dhaaf nimankan Luton daqiiqadii second markii 37 second daqiiqad uu ka dhaliyay lama joojiyaha Brian kacsan Denmarkiiska waxay kadib 7 daqiiqana waa ka dhaliyay ayagana waa dhaliyeen meeshaas lagu kala istaagay Luton koox si fudud uga badisay ma aragtay kooxay weeraray cub gal ma aragtay Arsenal waa aragtay xilligu Douglas baalka race ka dhaliyay City say uga badisay waa aragtay Liverpool bareej kala qaateen Newcastle way garaacday nimankan laayo Luton Brighton meel 5 ka soo kacay afar saddex meel Luton marka dhilleen maan United hambalyo waxba yaan dhilin cariiri aan la geli cariiri waa la geli karaa waa la rabay Chelsea inay celiyaan waa rabeen Chelsea inay celiso waa rabeen Chelsea inay celiso way rabeen kaalin yani cariirigaas waxa iska rabaa laakiin Chelsea 35 leedahay adna waxa leedahay 40 iyo 4 9 dhibcood ka koreysa 9 10 ba ahayd bas 9 waa oo ah isku bixis caadiya nimanka United iyo macallin Ten Hag waa soo kacay caawa xataa fiir Casemiro lagu show jaalayaal ay qabeen waa la saad maray iga soo baxo dhahay Lindelof wuxuu kaansaday McTominay gool badan xataa cunay laftigooda Manchester halka haysta Brody haysashada waa laga fiicnay laakiin cunitaanka laftigooda gool badan ay cuneen United waa soo laabatay bariyahan waxba laga ma qabanin FA Cup-kii kuma sii dariyaa iyo Wigan iyo Newport meel ay kuma sii darin waa Premier League bis Tottenham ka soo bilaw ilaa maantaydan dhinacood dhulka lama dhigin ninkan naga shoo ku hayaan wash Denmarkiiska wuxuu leeyahay Haaland iyo Nunes ma ka xumaa Haaland iyo Nunes waa dhaliyaan kuwan ma ka xumaa lugay tagtamaano ha anna xabada dhalina darbal isku joogo maanta xabad uga dhacday tan kale doorta u gooy mid koowaad shakiya gashay dhaw ku sii United afraad inay ma doorto waa iska cadahay afraadina way u badan tahay inay ma doortaan laakiin adiga waxa lagu yaabay hadda waxa leeyahay rijaal afraad lagu qalqaalana Koreal Karnay war Koreal lima dhow 37 la leeyahay 37 afree waa laga baxay shaniya lagu jiraa lixee la gal rabaa anno afree marusa marka Koreal kuma dhow kaalin saddexaad iyo kaalin afraad iyo waxa sita xataa saddexaad waa marka sita garaacid aan lagu dhigi karaa saddexaad u soo socotaa bilowga hore inaan naga jiiftaan waa fiicneed taageerayaasha United inay niga wararto oo dhib gashin waa fiicneedba ani marka dhahayo United waa nimca mucaarada ku ah adig waxa meelaysin daleel nimanka hadda hal mar kugu soo noolaadaan si lagu celiyo waa khatar si lagu celiyo khatar waay nimanka United hadda hal mar kugu soo noolaadaan si lagu celiyo waa khatar lacag waa haystaan baalki ciyaartooyda xooga wax yar ka wararsan mawgi
حتى daday soo gada karaan daday soo gada karaan marka waxaan leeyahay United hambaliyo galabta guula gaarteen guul fiican gaarteen kora u soo kacdeen baryaana waa nin shidan tahay manni xaqiri kari kooxda marmar mucaarad waa lagu noqdaa laakiin mar walba mucaarad ma lagu noqdo hambaliyan leeyahay waxaan ku dari rabaa nimankii Bayern Munich ahay horyaalka Jarmalka xaaladda ku xun Liverpool salaamaad garaacday waa laga dhaqaaqay Lazio Championka hal eber ka soo garaacday haddana waxa garaacday maanta Bochum 3-2 Harry Kane waxa loo yaabay horyaal alf malid macal Tuchel waxa way xaaladda ku xun shaqadiisa hadda in laga buriyo maamulka hadda way fadhiyaan saacadan way fadhiyaan ma kulanka Lazio sugnaa inuu soo laabta laga yaabay ima hadda burnaa la isku haystaa midkii saaxiibka Daan Cali soo weekay aba makaan mallah arbaca roos la qaatay axad roos la qaatay ninka la deg waa sanadka hore Championka inay City garaacdo dhig u sabab tahay way haddana horyaalka inay gafaan dhig u sabab ka way oo bimakaano qaranka Faransiiska waxa gali doona khalqin haduu saan ku sii socdo Bayern Munich horyaalkii buu ka sii 8 dhibcood laga sareeyo malayna Liverpool sana sareyso oo dhinaceeda dhulka la dhigin hambal yaa leenahay